السلام عليكم دمان وان سلام asxaabta liil baasta oo anigo liil baasta caawa waxaan rabnaa inaan hees raashin aan ka bixino hees ay soo qaadeen kooxda la yiraahdo qayladaan 4 sano bay hawada ka maqnaayeen dib ay soo laabteen marka waxay soo qaadeen hees ay ugu macdareen adeer qoriga hay dhiibin runtii aniga shakhsi ahaantayda heestaasi waan ka helay sababtoo ah maanta dadkeena waxa moodaa qof walba qofkii taqaano xigada inuu qoriga u dhiibayo ma garatay laakiin aan laga fakarin danta dalka iyo dadka iyo shacabka Soomaaliyeed marka anigu runtii waan ka helay laakiin dad badan ma taqaana heestada ma taqaana oo dhaliilsan oo diidan waa arkay oo dhigtay saaraya laakiin aniga hubigayga waan ka helay sababtoo ah wixii xaqiiqa wixii ka hadlaya anigu waan soo dhaweynaya heesta magaceeda waxa la yiraahdaa adeer qoriga hay dhiibin runtii wadankeena waxa qaribay waa qoriga aakaas qorigaas weeyaan qorigaas micnaha qof walba oo Soomaali ah wuxuu jecel yahay qofka u dhow ilma adeerkiisa inuu ku dilo laakiin kama soo fakarin maxaa ka iman kara bal ka warama qoriga hadaan meel aan iska dhigano oo qoriga xagga aan iska tiirino ka warama oo aan ka shaqeyno aan ka fakarno danta dalka iyo dadkeena markaas ayaan gaarinaa guul fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar la gare barnaamijkan si share gare maadaama uu yahay raashin buuqiisa wato one love Soomaali Maxamed wanigan kan dhimanaya wanigan kan dhiig baxaya adna dhaawac yeelkee xataa dhidid maka horo wadigan kan dhuranaya wadigan kan dheefsanaya adna dheragta yeelkee xataa dhuuta ima qoysi igadaa haydhiibin adeer qoriga haydhiibin igadaa haydhiibin adeer qoriga haydhiibin macnaha wuxuu leeyahay adiga adiga hadii aad guriga seexatid oo aad wax walba cuntid oo nolol fiican ku noolaatid ilmahaaga aan taqaan meel fiican geysatid ba aniga waxay leedahay qoriga oo qaado oo soo dagaalan waxa dhimanaya waa aniga waxa dhiidka ka imaanaya waa aniga waxa rafaadayo silcaya waa aniga laakiin adiga daawanaya ilmahaaga waxay ku noolyihiin nolol aad u sareysa laakiin aniga nolosha aan ku noolahay kama fakarin marka waxaan ku leeyahay adeer qoriga hay dhiibin wanigan kan dhimanaya wanigan kan dhiig baxaya adna dhaawac yeelkee xataa dhidid maka horo wadigan kan dhuranaya wadigan kan dheefsanaya adna dheragta yeelkee xataa dhuuta ima qoysi igadaa haydhiibin adeer qoriga haydhiibin igadaa haydhiibin adeer qoriga haydhiibin wuxuu leeyahay waa aniga dhimanaya waa aniga dhiig baxaya anna dherag baad meel cilaa la jiiftaa kan dhimanaya waa aniga kan dhiig baxaya waa aniga adigana dherag baad la jiiftaa meel cilaa adeer qoriga aan loo dhiibin adeer qoriga haydhiibin macayo kuleylaaxun markay xabadu dhow kaanto waxaa tahay kan dhoofaya ballankiisa raranaya bulshisheeya geysanaya anigana dhibtiyo hawsha qaxa dhabarka saaraya hooyadiina dhimanayso abbihii dhadhaabaya walaalkiisna dhiig baxayo asna dhagaha beenaya dhugtaya madaafiicda waxaan ahay kan dhakafaara igadaa haydhiibin adeer qoriga haydhiibin igadaa haydhiibin adeer qoriga markii dhibaatadu dhacdo adiga waa dhoofaysaa garoonka tagaysaa waa duulaysaa ninka rafaadaya silcaya waa aniga ninka dhiig baxayo dhimanaya waa aniga ninka hooyadiisa ciyaalkiisa ay ku baaba'ayaan waa aniga laakiin adiga ilmahaaga iyo dadkaaga iyo familkaaga nolol sareysa ku nool yihiin wadan shisheeya geesi markii xaalad ay xumaatana garoonka tagaysaa waa duulaysaa adeer qoriga hay dhiibin igada dhibaatada adeer qoriga hay dhiibin ku bariya adeer macaan qoriga hay dhiibin macayo kuleylaaxun
markay xabadu dhow kaanto waxaa tahay kan dhoofaya dhalankiisa raranaya bulshisheeya geysanaya anigana dhibtiyo hawsha qaxa dhabarka saaraya hooyadiina dhimanayso abbihii dhadhaabaya walaalkiisna dhiig baxayo asna dhagaha beelaya hugtaya madaafiicda waxaan ahay kan dhaka faara igada halidin hadeer qoriga haydin igada halidin hadeer qoriga haydin dhawaqiyo rasaastani dheeldheel haddaad moodo adeer adiga oon dhuuma adeer dhinac ka soo jeesho inta kaalay ila qaybso hadda kaniine soo muuqo dhaqaaliyo rasaastaada dhawaqiyo rasaasta haddaad moodaysa dheeldheel adeer adiga oo dhuuman dhinac ka soo gala xabadda oo qoriga qaado oo dagaalam adeer waxaa rabtaa soomaha haddii inaan nolol ku noolaatid laakiin aniga waxaa rabtaa soomaha inaan ku noolaa nolol tan ugu hooseyso oo aan rafaado oo aan dhinto oo aan dhig baxo hooyadeenna ay dhimato rafaado dhig baxo miyaa aad doonaysa adeer macaane taasi adeer macaanu kaa yeeli maayo haddaad rabtid haddaad xanuunka ay leedahay xabadda iyo dhibaatada ay leedahay haddaad ogaan lahayd waxaan ku leeyahay dhinacaaga ka soo gal dhinacaaga ka soo gal waxba ha dhoofinin dhiibi qofka waan ku wada dhalanay dhanka tihid qabiirkaane adeer dhimo qaltoogaaga igada halidin hadeer qoriga haydin igada halidin hadeer qoriga haydin dhawaqiyo rasaastani dheeldheel haddaad moodo adeer adiga oon dhuuma adeer dhinac ka soo jeesho inta kaalay ila qaybso hadda kaniine soo muuqo dhaqaaliyo rasaastaada adeer meel intaa dhigati reeftiyo cuntada hayso xoolahayska soo dhiibi qofka waan ku wada dhalanay dhanka tihid qabiirkaane adeer dhimo qaltoogaaga igada halidin hadeer qoriga haydin igada halidin hadeer qoriga haydin qorraxdiyo dhalaalkeeda qof socdaa dhibsada maalin ama dhado qabow badan leh qorraxdiyo dhalaalkeeda qof socdaa dhibsada maalin ama dhado qabow badan leh dadka aan ku dheelminayo xabad aan ka daba dhowsho dhulkoodii ka sii qaxiyo aakhira lay dhaafayne mada dhabarka saaraya ilaa noo dhex mari doon igada halidin hadeer qoriga haydin haddii aad muuqaalkay daawanaysaan fadlan aad muuqaalkay daawanaysaan muuqaalkan sii shargareeya qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed yuusan u dagaalamin yuusan dhiigiisa u shubin nin minaha caloosha u shaqeysta oo daneysta ah oo wadan shisheeye ka yimaaday markuu ku leeyahay adeer macaan qoriga hoo qaado oo dagaalan waxaad tiraahdaa adeer adiga hoo bilow adiga ka horkaco bilow oo dagaalka dhinacaaga ka gal laakiinse inuu ku dhaho adeer lacag baan ku siinayaa waan ku dhaqaaleynayaa wax walbaan ku siinayaa ee dagaalan mustaqbalkaaga ku ciyaarin bari marka xaalado xumaato wuxuu rabaa dib wadanka inuu iskaga dhoofo wadan shisheeye tago kan rafaaday oo silcaya waa adiga hooyada iyo aabahana waxay ku nool yihiin nolol aad u liidata way rafaasan yihiin hooyada masaakiinta oo yaanyada suuqa ku gadaysa wuxuu rabaa kaliya inay rafaado oo qaxdo ay baabado isna ilmihiisa wuxuu rabaa inay ku noolaadaan dabaq iyo nolol aad u sareysa iyo waxbarasho nooc ugu sareysay waxaan leeyahay dhalinyaro mustaqbalkiina yaa lagu ciyaarin wadanka idinka iska leh hal shakhsi oo kaliya yuusan kumanaan kun oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah yuusan mustaqbalkooda ku ciyaarin waa adiga fakar dhalinyaro idinka fakara micnaha ninka ku xukumaya kuliya dagaalan waa nin asaaga oo kala sagaal bilood buu ku dhashay anna sagaal bilood baa ku dhalatay asaga hooya dhashay anna hooya ku dhashay asna aabba dhalay anna aabba ku dhalay waayo sababta uu ku xukumayo uu ku leeyahay dagaalan waa maxay
miyaadan waddankaas adiga ma lihid waxaan leeyahay dhalinyaro yaan ayatiinkiina lagu ciyaarin fadlan yaan ayatiinkiina lagu ciyaarin siyaasi danaysta ah marna waxa u dagaalamin marna aniga cidna ma ataagayo anigu cid aan ataagayo ma lahan laakiin waaqaca jiraan ka hadlayaa dhabta jirtaan ka hadlayaa waxaan ku leeyahay dhalinyaro waxa doontid ahow ama mucaarad ahow ama muxaafid ahow marnaba ha u dagaalamin siyaasi danaysta ah marnaba ha u dagaalamin ka fikir waddankaada iska leh waa waddankaaga hooyo waxa laga rabaa kama inaad u dagaalantid inaad dhistid inaad ka fikirtid minaha hadii adduunka horumaray sidee baan ula tartamnaa hadda China maqasay maan leeyahay minaha waxay cirka u direen dayax gacmeed oo gantaal minaha sida marka dayax gacmeedka minaha uu ka lumay oo yaani qadkoodu ka baxay waxa kamin kari waayeen haye adduunka xaggaas ku fikirayaan xaggaas ku fikirayaan inay samada taqaanada wax u diraan bay ku fikirayaan maanta inaga caasimadeena Soomaaliyeed maayad wadanka oo soo kabcisay baan ku dagaalamayna waxaan leeyahay Soomaaliyeey yaan la isku dirinay ka fikir ayeen aad baan salaamaya fadlan hadii aad channelka cusub taasirkay noo saar muuqaalka si shargare gaarsi dad badan oo dhalinyaro ah si ay muuqaalka u daawadaan damacooda taqaanada guracana foosho xun ay u bedelaan ay ka fikiraan ay tiinkooda mustaqbalkooda